khudbaddeennu waxay ka warramaysay ama aynu maanta u taaganay inaynu ka hadallo raadka iyo dhibaatada ka dhalata macsiyada iyo dunuubta iyo gafafka aynu ilaahay ka galayno subxaanahu wa tacaala. waxa maanta aynu ogsoonnahay oo aan la dafiri karaynin dadku inay aad ugu dadaalaan caafimaadka jidhka, oo qofku haddii la yidhaahdo cudurka noocaasaba magaalada soo galay, bakteeriyadaasaa keenta, fayraskaasaa keena, wuxuu aad ugu dadaalaa qofku inuu caafimaadkiisana ilaashado, meesha cudurkaa lagu sheegana uu ka fogaado. haddii cudurkuu ku yimaadana caafimaadkiisa u degdego cusbitaalka u cararo. kharash badan buu ku bixinayaa, isaga naftiisa, carruurtiisa, ehelkiisa wuxuu ku dadaalayaa inuu sixatal badan caafimaadka jidhka helo ayuu ku dadaalayaa. waxaynu baraarujinaynaa walaalayaal oy tahay inaynu ogaanno intuu caafimaad u baahan yahay jidhku in ka badan ayay ruuxduna caafimaad u baahantay. ruuxda qofka oo aan noloshii dhabta ahayd, nolosha dhabta ah ee qofku uu leeyahay waa nolosha ruuxdiisa. marka siduu jidhku ruuxda ugu nool yahay ayaa ruuxduna ay ugu nooshahay diinta iyo cilmiga iyo cibaadada. marka waxaynu u baahannahay inay ruuxdeennu caafimaad qabto, oo sidaynu ugu dadaalayna caafimaadka jidhka si ka badan inaynu ugu dadaallo allahayna siiyaa caafimaadka ruuxda. waxa markaa laga maarmaana oo khudbaddeenana ay ka hadlaysaa sidii aynu shaybaadh ugu samayn lahayn ruuxdeenna si aynu u garanno cudurrada haya, kadibna caafimaadka ilaahay aynu u weydiisanno. farmasiga loo cararee dawada laga qaataana waa kitaabka qur-aanka iyo diinta ilaahay. marka waxaynu eegaynaa bal cudurrada ka yimaada gafafka, dunuubta, macsiyada ilaahay laga gala subxaanahu wa tacaala. addoonku markuu ilaahay caasiyo edabdarra tii u weynayd buu la yimi, waayo ilaahay buu ku gacansay idhuu ilaahayo waaday abuurtay laakiin waan ku diiday. addoon yaroo daciif ahoo miskiina ama ummad noocaa isula timidna ilaahay agtiisa way ka eedaysan yihin. waxay u taagan yihin waa ayaan darro iyo inkaaro iyo aafaad ku dhaca. marka raadka macsiyada mararka qaarkood qofkaa lagu arkaa, mararka qaarkood qoyskay ku dhacdaa, mararka qaarkood ummaddiiyo deegaanka lagu arkaa. waxaa ka mid ah inuu ka lumo shayga la yidhaahdo xifdiga iyo cilmigu. cilmigii qiimaha badnaa ee qalbiga nuurayay ee nolosha dhabta ahaa ayaa dadkii ka dhimanaya ama qofkii uu waayayaa markuu caasi noqdo. cilmigu waa nuur, qalbi safaysan buu degaa. sida ku maqlaysay khudbadda imaamu shaafici waxaa la hadlay sheekhiisii imaamu maalik. wuxuu uhi waxaan arkayaa inuu ilaahay xifdi iyo fahmo iyo nuurku siiyee macsiyada ka ilaali. gabayga dalabatulcilmi ay tiriyaana imaamu shaafici sheekhiisii wakiic uu kula hadlayana waxa uu ku muujiyey inuu ku waayay xifdigiisa ama kaga nuqsaamay aan idhaahdo macsiya uu hal mar ama gef yar oo uu ku dhacay. waxay yidhaahdaan kutubaha qaarkood ruux dumara adinkeedu sidaa u eegayo markaasaa xifdigiisa imaamu shaafici uu isdhimayoo markaasuu cawdayoo gabaygaa u tiriya sheekhiisii si uu irshaadaadkiiyo tilmaami uga sii qaato. maxaad u malaynaysaa isha halkan taagan ama isheennu intee oo jeer bay xaaraan iyo macsiyo gef ku dhacaysa, ama afkeenna ay ka soo baxaysaa macsiyadaas, ama uurkeenna ay ku dhacaysa. waxaa ka mida raadka macsiyada alwaxsha, shayga loo yaqaano cidlowga ama qofkiioo qaloonaya. waa qofkiioo didsan, waa qofkiioo deganaanshihi ka maqan yahay. culamaau suluuk waxay leeyihiin qofku waxa uu yeelan karaa laba nololood: xayaatulmustawxishiin wa xayaatulmusta'nisiin. xayaatulmusta'nisiin waxa weeye dadka ilaahay uu heshanaya noloshooda, fiiha asacaadatu waalraaxatu waatumaaniina. waa dad deggan, xasiloon, faraxsan, dadka ilaahay uu heshanaya subxaanahu wa tacaala, daacada leh, ruuxdoodiiyo ay caafimaad qabtay dhisanta. waxaa jira xayaato kaloo loo yaqaano xayaatulmustawxishiin, dadka nool ee adduunyada ku nool iyagoo cidlaysan. reerkiisii buu la joogaa, dalkiisii buu joogaa, dunyadiisii iyo xoolihiisii buu haystaa, laakiin wuu warwarayaa, waanu cabsanayaa, cidhiidhina wuu ku jiraa. taasina waxay keeni kartaa inuu inta uu qaadan waa ku dhaco kow iskaga siiyo.
waa cudurka ugu badan ee gaalada hadda ku dhacaya dadka diinla'aanta caadaystay strasti qulubka cudurka ay yidhaahdaan waa u qaadan waa noloshii baa ka hor imanaysa marka waxaa ka mid tahay taasoo maanta loo leeyahay dhakhtar kuwa waxaa loo geeyaa cilmu nafsiga laakiin waxba kama sheegi karaan kiinina yaroo muhadi'aada buu siinayaa ma odhan karo qofkii macsiyada iska daa iyo dembigan iyo alla ka fogaanshaha ayaa kuugu wacan kulaylkan iyo deganaansho la'aanta iska daa ma odhan karo isagii baa ku jira dhakhtarkii markaa wuxuu odhanayaa waan kula talinayaa waxyaabo yaroo sidaa kiniinka xumad jabinta oo kale abuu sheegaya ma siinaya waxaa ka mid ah raadka macaasida ee aynu ka eegayno nolosheenna iyo ummaddeenna inuu ku jirayo in kale shayga loo yaqaano qilatu tawfiiq wa tacasuru lumuur in dadka ay ku yaraato waafajintu wixii wanaagsanaa iyo xikmaddii ayaa ku yaraanaysa dadka inay waafaqaan arrimahoodoo dhanna jiq baa ilaahay kaga dhigaya waa ilaahay baa farajka bixiya ilaahayna dadkii way diideenoo way ka soo hor jeedsadeen wax walba uu ku qufulaya uu ku xidhaya markuu qofku isidhaahdo cilmi samee cilmi baro ama horumar samee adduunyo wax walba ku soo oodmaya qofkii wuu cabanayaao wuxuu leeyahay ma garanayo meel la iga raacee laakiin wax waliba way igu adagi gabadhan isidhaahdo guurso way diiday ciddaan isidhaahdo u shaqe way eryayaan waxaan isidhaahdo waa bara maba fahmayo tacasur umuur musiibada keenta waa gefka iyo macsiyada marka qofku wuxuu u baahan yahay inuu ilaahay u noqdo subxaanahu wa tacaala soomaalidu waxay idhahdaan doqontu way taahdaa laakiin meel laga raacay ma garanayso qofka doqonka ah aadaasuu hayaa wuu taahaya laakiin xanuunkiisii ma garanayo marka caasigu waa doqon garan la meesha laga raacay waxyaabaha macsiyada raadka iyo dhibaatada uu kaga tago qofka waxaa ka mid ah wahanulbadan jidhkiisu inuu noqdo mid tamar daran diin iyo dunya wuxuu qabsan karayaaba aanu jirinba alcajsu waalkasal tacbaannimada iyo wahsiga uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay ka magan gelayay kuwaasuu ilaahay u badinaya markaasaa qofku waxba uu qabsan kari waayaya waayo rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam almu'minu alqawiyu khayrun waaxabu ila allahi min almu'min aldaciif qofka mu'minka ah ee xoogga badan ee quwadda badan buu ilaahay ka jecel yahay qofka mu'minka ee daciifka ah daciifnimadaas iyo quwaddaas dee waa tii ruuxda qofka ruuxdiisu ay quwad leedahay ee iimaankiisu uu qawi yahay ee cibaadadiisa iyo daacadiisu ay badan tahay alla yaqaanka ah haba dhuubnaado haba itaal yaraado muruqyadiisu ha yaraadeen laakiin gidaarkaasuu jeedhi karaya abubakar sidiiq radia allahu canhu kaana naxiifan waxaa nin dhuuban oo macawistu ka dhacay sida xadiidka macruuf ku ah haddana dee awooddiisii ummaddu ku badbaadiyey oo khayrka ugu horseeday marka dad badan oo tacbaansan oo danahooda fushan kari la diin iyo dunyaba halka laga haystaa waa caasinimada waa inay ogaadaan waxaa ka mid a raadka macsiyada xirmaanu risqi arsaaqadda oo dadka ku yaraata ama bulshada iyo deegaanka ilaahii arsaaqadda bixin jiray subxaana wa tacaala dadkii way diideen way caasiyeen way ku gacan saydheen kuma aqbalayna yidhaahdeen ilaahayna wuu ku yareeyey roobkiisii barakadii cirka iyo barakadii dhulka labadaba ilaahay wuu soo koobayoo wuu ku yareeyey markaasay ku warwareegayaanay leeyiin dabeecaddii baa sida noqotayoo qorraxdii baa fallaadhaheedii xijaabkii adduunyada jeexeenoo dabeecaddaynu ka shiraynaa waddamada waaweyn iyo gaalada intay isu yimaadaan waxa la odhanaya dabeecaddii baa laga shirayaa iyo bal sidii warshadaha looga yarayn lahaa iyo sidii qiiqan ku baxaya iyo wasakhowgan loo yarayn lahaa waayo raxmaadkii baa isbeddelay wax soo saarkii baa yaraaday min usus aliqtisaad alislaami dhaqaalaha islaamka marka laga warramayo sida loo soo noolaynayo waxa kow ka ah inay dadku yihiin dad alla yaqaana ilaahay baa wuxuuhi waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib waman yatawakkal cala allaahi fahuwa xasbu bushaarooyinkaas iyo ballanqaadkaasuu ilaahay qaadaya marka arsaaqaddii meel aanad filayn bay ka imanaysaa haddii addoommuhu ilaahay ay ku toosan yihin ay ku hagaagsan yihin marba marka macsiyadii sii badata ee agabkan wax lagu baahiyo loo isticmaalo ee adduunyadii fasaadka uu isu baxe ee dadkii muslimiintaha iltisaamkii iyo dhaqankii wanaagsanaa ku yaraado waxaynaan arki jirin baa la arkaya oo kala duduwanoo yaab leh oo abaarihii iyo aafaadkii baa badanaya taasina wax jira weeye oo ballanqaadkii ilaahay addoommaha u ballanqaaday ayay waayayaan oo ahaa inuu markaa arsaaqadda u biiriyo u badiyo
waxa kamida waxyaabaha raadka macaasidu ay leedahay maxqu barakatil umr cimriga barakadiisu inay ka baabaado cimrigu walaalayaal ma aha badnaanta anigu 60 baan jiray 80 baan jiray 100 baan jiray abidkayba meel lagu jabaan jiqil la weynaayo soo jiray waxa ma laakiin cimrigu waa barakada ka soo qaad qofkan 80 jir buu ahaa maba cibaadaysaninba qofkanina waa 20 jir oo 5 sano uu qaangaarka ahaa wuxuu ka faa'iideysanayay fadliga jamaca ee 27 darajo wuxuu ka faa'iideysanayay cibaadada la gudanayo ee ajrigeedu laban laaban wuxuu ka faa'iideysanayay laylatul qadriga oo cimrigiisu qofka hore u kacayo waxa laga yaabaa 5 sanadood inuu dhaafo kaasteediyad 80 jirka ee isagoo cimri dheer ku faanaya idan marka qadiyadu ma aha badnaanta laakiin waa barakadana yaa bixiya ilaahay subxaanahu wa ta'ala ilaahayna muxuu ku bixiyaa inuu adoonku yahay adoon ilaahay hoos taagan oo daaca leh oo rabbigiisa ka baqaya subxaanahu wa ta'ala marka qadiyada barakada oo diinteenuna aad iyo aad u dhiirisay waxa lagu helaa oo lagu faa'iideystaa oo laga qaataa daacada ilaahay subxaanahu wa ta'ala in rabbi la adeecayo qaalada ilaahay uu ka warraba wuxuu amwaatun ghayru ahyaa wama yash'uruna ayana yub'athun waa dad iska nool laakiin dhintay oo geeriyeysan waxa laga helaa musiibada lagala kulmo waxa kamida shayga la yiraahdo caasinimada xirmaanu daaca qofka wixii uu noolaayo inuu ilaahay caabudo subxaanahu wa ta'ala way ku adkaanayaan cibaadadii baa dhadhan u yeelan waayis laana waa mariid oo xanuunsanaya waxaynu ogsoonahay qofku markuu buko cunadii macaanayd iyo sharaabkii macna uma sameeyo hurdadu macna uma sameeyso ma gamayo dawada ma qaadan karayo wuxuu dhan uu diidaya iga daayay buu leeyahay gaajadaydaas iyo qadoodigaygaasaan ku noolaanaya waa mariid marka sidaas oo kale uu yahay qofka caasiga ah ee cibaadada isagoo caajis ayuu yara dhaqdhaqaajinaya wadwadaya waxba uma faa'iideynayso taasina marka waxa keenay oo sabab u ah caasinimada uu ilaahay caasiye subxaanahu wa ta'ala marka qofku ilaahay caabudaya markuu alla u soo jeedo amarkii ilaahay qaatay xaaraantii xumaantana deynaya cibaadada dawq iyo dhadhan buu ku haya masaajidka tagidiisu xiisaynaya inuu fadhiyaabuu xiisaynaya xabsi ma dareemayo quraanka u macaan salaatul leylka u macaan sadaqada u macaan wanaaga oo uu faro xumaantu ka dhidhiyo waxa soo dhan waxa kamid ah raadka macsiyada libaasu dhul qofkii ama ummadii waxa ku habsanaya dulli baa ku habsanaya caama oo ummadu miisaankii ay ku lahayd adduunyada ama dadka dhexdooda hoos buu dhacaya dulli baa ku imanaya ama dadka dhexdooda qofku muuqaalkii uu ku lahaa malahay uu madoobaanaya dadka qaar kood baa la yiraahdaa hebel uu nuuraya qofna waxa la yiraahdaa hebel madoobaad buu qabaa wuu silan yahay wuxuu baa dushiisa saaran waxa saaran ay dadka wanaagsan arkayaan laga arkaya waxa waa raadka macsiyada ilaahay baa wuxuu waman yuhinillahu fama lahu min mukrim man qofna way noqotaa ummadna way noqotaa qofku ilaahay duleeyo yaa karaameynaya ee maamuusaya muslimiinta maanta waad arkaysaa caalamka aynu ku noolahay dadka inta faraha badan dulliga iyo dhibku uu haysto ee idaacadaha iyo tiifiyada iyo laga sheekaynayo laga baac mushtareenay balaayooyinkooda ama mid cadow ku sameeyaha ama mid dhexdooda ha ahaato waa muslimiinta waxa keenay markasta ilaahay ka durkaan dulliga ku badanaya markasta ilaahay u dhawaadaan subxaanahu wa ta'ala ciisigooda kor u kacaya marka waa arrin u baahan runtii qaranka muslimiinta iyo qoyska iyo qofkuba inay dib u eegaan waxaanina haysta xagu ka yimid waxa kamid ah raadka macaasida inay bahaa'imta iyo xayawaanka iyo xooluhu nacdalaan xoolaha iyo mayeedhada iyo ugaadhaas iyo way nacdalayaan qofka ama ummadda caasiga ee dunuubta iyo xaaraanta iyo xumaanta sameynaya way nacdalayaan leannahu abaarta iyo cudurrada iyo dhibkoo dhami macsiyada iyo dembiga dadka la joogay ka yimaadeen ilaa iyagu mukallaf maaha xilma saara xoolaha fama bakat calayhim as-samaa'u wal-ardu wama kaanu munzariin ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala wuxuu tilmaamayaa cirkiyo dhulku inay u ooyaan qofka wanaagsan qofka caasigaana aanu helaynin arrintaas oo aanu la kulmaynin waxa kamida waxyaabaha raadka xun ee macsiyada iyo dembigu dadka uu ku yeesho incidaamul ghayra dadka in laga waayo waxa loo yaqaan hinaasaha ama masayrka ama inuu qofku xumaanta diido
xumaantiiba agtooda lagu walaaqayaa qof waliba caadiba uu to waxba igama gelin maxaa iga saaran uu iska dhaafaya maxaan ka doonayaa maxaan u weydiinayaa qofka muslimka ah laakiin iimaankiisu wuxuu siinayaa ma xamili karayo xumaanta bulshadiisa iyo ehelkiisa iyo ummadiisa lagu samaynayo iyo diintiisa wuu ka dhiidhiyayaa wuu ka dagaalamayaa wuxuu u noolaa oo mabdiisa in la taabtay buu ogyahay marka haddaad aragto dad khayrala oo aan hinaaso lahayn oo xumaantu caadi u tahay oo wanaaggu aanu macno u samaynaynin waxa ku dhacay raadkii macsiyada iyo musiibadaasaa ku habsatay waxa ka mida waynu soo koobkoobaynaa mid waliba sharax buu u baahan yahay mawaadiicda aynu ka hadlaynee raadka macsiyada waxa ka mida zawaalu nicma wa nuzuulu niqam nicmadii ilaahay meesha ka baxaysa balaayna way soo bedelaysa oo sideedaba nicmadu waa barwaaqo iyo badhaadho ilaahay uu bixiyo waxa dabar u ah daacada la yidhaahdo shukriga markay addoomuhu ilaahay u mahadnaqaan u ogaadaan deeqdaa inuu isagu siiyey nicmadii way xidheen haddii ay ilaahay ku caasiyaan nicmadiisa oy ku kibraan oo dadka ku dulmiyaan oo dal iyo dadba ay ku fasahaadiyaan awooddii ilaahay uu siiyey oo nicmada shukrigeedii ay la iman waayaan waxaa dhacaya inuu ilaahay ka qaado weydaariye subxaanahu wa tacaala lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabi la shadiid ilahay baa wuxuu tilmaamaya haddii mahadnaqu yimaado tii horena way kuu joogaysaa nicmada kororhsiimana ilaahay wuu bixinaya ilaahay xoog waxba lagagama qaado ilaahay laysuma xariifiyo ilaahay laguma kibra subxaana wa tacaala arrimaha addoommaha ilaahay kala hortaga adhaxduu ka jabiyaa marka wax badan aanu naqaanay oo adduunka ku naqaano barwaaqo ahaa oon dad filcibaadi walbilaad dal iyo dad kuga arki jirnay oo isbedelay taasaa sabab u ah waxaa ka mida dahaabulxayaa qodobkii hore ka agdhowdahay xishoodku inuu dadka ku yaraado raggiibuu xishoodku ku yaraanayaa dumarkiibuu ku yaraanayaa carruurtiibuu ku yaraanayaa madaxdiibuu ku yaraanayaa madaxdiiba halkuu qofku xaaraanta ka faani lahaa ee uu dulmiga ka faani lahaa ee uu sharafta ka baadi dooni lahaa dadka maxaad u qabatay horumar maxaad samaysay ummaddaada maxaad ku kordhisay lagu xusi karaa wuxuu ku faanayaa intaasaan cunay intaasaan qaatay intaasaan ayaan meeleeyey waxaasaan ka kororsaday wixii ummadda dulmigiibuu ku faanayaa dadku ka argoostuu ku xadgudbay buu ku faanayaa taasina waa raadka macaasida ayaa ay ka mid tahay ee ummadda iyo dadka iyo dowladda lagu arki karo waxaa ka mida adabcu cala alqalb in dadka qalbigooda la daboolo meesha qofka bani aadamkii uu ka noolaya waa qalbiga siduu nebi maxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam sida aayado aad u fara badanoo qur-aanka ay ka warramayaan qalbiga qofku wuxuu ku nool yahay cibaadada iyo qur'aanka iyo diinta iyo waxyiga ayuu ku nool yahay haddii taa qofka ay ku yaraadaan qalbigiisu wuu xidhmaya kalaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun markaasaa wixii wanaagsani wuxuu la noqonayaa wax xun wixii xumina wuxuu la noqonayaa wax casriya oo horumara oo ilbaxnimo oo wanaaga ayuu la noqonayaa sidaa daraaddeed baa maanta aad arkaysa adduunyadu waxaa loo tasfiiqinayaa loo sacabatumaa qofba qofku xumaanta caankaga yahay ninbaa wuxuu idhi shir baannu ka qayb gallayoo waa nin soomaalida ka mida oo markaa ay isugu yimaadeen dadka sharciyaqaanada iyo looyarada iyo waxaa mid gaalada ka midabaa istaagoo uu hadloo wuxuu leeyahay war caalamku maanta yaan lagu adkaynayn arrimaha xorriyad buu helay oo waxaa la marayaa casri la soo taabtay dabada bani aadamka la soo taabtay intoo la socday ilbaxnimadii halkaasay gaadhay buu ninkaasi ku leeyahy macnaha wuxuu ku faanayaa qowmuluudkii iyo raggii wax ka daya halkaasaa la marayaa buu leeyahay xorriyaddii iyo maanta sida qof waliba wuxuu xaq ugu leeyahay wuu u samayn karayo walaalayaal aad bay u badayin macaasidaasi maantana waxaynu ku arkaynaa dalkeenna waxaynu ku arkaynaa dadkeenna waxaynu ku arkaynaa deegaankeenna iyo meeshaynu ku noolnahay waxaynu ku arkaynaa nafteenna ma inaynu taahnaa unbaa waxaa la yidhaahdaa albukaa'u adaatu man laa qudrata lahu oohinta iyo baroortu waxa isticmaala qofka awood waayey ayuunbaa iska baroortoo iska qayliya waynu taahaynaa waynu barooranaynaa waynu ooyaynaa laakiin waxaa loo baahanya isbeddel ina allaha laa yugayiru maa biqawmin xataa yugayiruu maa bianfusihim sidaa ilaahay qur-aankiisa uu ku xusay isbeddel ilaahay ma siiya buu leeyahy ummadaha isbeddel horumar oo wanaagsan oo raaxa ma siiya ilaa iyagu xumaanta iska beddelaan marka taynu isku baraarujinaynaa maanta waxa weeye waxyaabahaasoo raada oo dhibaato ah waxaynu ku shaybaadhaynaa nafteenna
dalkeenna deegaankeenna ummadeenna qoyskeenna aynu ka eegaynaa ma ka jiraan mise kama jiraan haddaynu nadiif ka nahay falilaahi alxamd hadday laakiin waxaani jiraan waa cudur inahayee caafimaadkiisiina waxa uu ku jiraa inaynu ilaahay u toobadkeenaynu u soo noqonno oo toobadda aynu badinno towbaddii dhabta ahayd ee xaqiiqada ahayd ee nasuuxa ahayd ee waxiguu sheegay naftayda iyo idinkaba taasaynu isku baraarujinaynaa ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu inagu anfaco waxaynu isu sheegayno allahuma ajcalna min aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsanah rabbana laa tuzigh quluubana bacda id hadaytana wahab lana min ladunka raxmatan inaka anta alwahaab allahuma ansur alislaama walmuslimiin وانصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة